Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa anigoo ah Macalin Shariif. Fiidiyogan waa update ku saabsan dib u furitaanka iskoolaadka. Dowladdu way hadashay waxayna sheegtay in dhammaan iskoolaadka waddankan Ingiriiska dib loo furayo laga bilaabo 5 bishan Janaayo oo ku aadan maalinta Arbacada haddii Ilaahay idmo. Haddaba iskoolaadka waxaa soo wajahaya laba caqabadood oo aad u waaweyn. Caqabada koowaad, iskoolaadka waa inay ku dhex faafto cudurkan coronavirus, taas oo saameyn ku yeelan karta macallimiinta iyo shaqaalaha guud ahaan iskoolaadka ka shaqeeya, taas oo sababi karta in badan oo ka mid ah shaqaalaha inay karantiil galaan, khaasatan macallimiinta. Xogayaha waxbarashada waddankan Ingiriiska Mr. Zahawi wuxuu sheegay in iskoolaadka dib loo furi doono 5 bishan Janaayo 2022, wuxuuna u diray warqad dhammaan iskoolaadka waddankan Ingiriiska. Warqadan waxaa ku qoran waxyaabaha looga baahan yahay iskoolaadka inay sameeyaan. Tallaabada ugu horreysa oo iskoolaadka laga rabo inay sameeyaan waa iskoolaadka inay baaraan carruurta maalinta koowaad ay iskoolka kusoo noqdaan. 2, iskoolaadka inay hubiyaan dhammaan daaqadaha iskoolka inay furan yihiin. Iskoolaadka waxaa la siiyey qalab sifeynaya hawada, qalabkan oo loo yaqaano air purifiers. Galaasyada ayaa la dhigayaa si ay u sifeeyaan hawada galaaska. Sidoo kale waxaa loo sheegay dhammaan ardayda dhigata secondary-ga, sixth form-ka iyo kolleejyada inay qasab ku tahay inay xirtaan gafuur dabool marka galaaska lagu jiro iyo marka bannaanka la joogo intaba. Sidoo kale waxaa lagu wargeliyey iskoolaadka inay kor u qaadaan nadaafadda iskoolka, khaasatan in galaaska la nadiifiyo ka hor inta aysan gelin ardayda. Haddii ay dhacdo in carruurta qaar laga helo cudurkan, waxay galayaan karantiil. Inta karantiilka ay ku jiraan waxaa laga doonayaa iskoolka in ay waxbarashadooda ku siiyaan qaab online ah. Waa waajib saaran dhammaan iskoolaadka inay siiyaan carruurta casharkooda ka dhacaya iskoolka inay ku siiyaan qaab online ah haddii aysan joogin iskoolka. Su-aasha ugu weyn waa maxaa dhacaya haddii macallimiin badan ay karantiil galaan? Wasaaradda waxbarashadu waxay sheegtay in iskoolka laga doonayo inay isticmaalaan dhammaan shaqaalaha iskoolka ka shaqeeya, taasoo macnaheedu u yahay in laga yaabo shaqaalaha aan macallimiinta ahayn inay baraan casharro. Sidoo kale iskoolaadka waxaa lagu wargeliyey inay waajib sharciga ku tahay inay hubiyaan in carruurta ka maqan iskoolaadka casharradooda ay si remote ah ku qaataan. Shaqaale badan haddii ay maqan yihiin, iskoolaadka waxay isku dari karaan galaasyada. Tusaale ahaan, haddii iskoolka uu haysto 3 galaas oo year 7 ah, waxaa loo kala qaybin karaa 1 galaas 2 galaas ee kale, taasoo macnaheedu u yahay galaaska inuu ka koobnaanayo arday aad u fara badan, taasoo kordhinaysa fursadda ah in cudurka la isku sii gudbiyo. Ugu dambeyn, maxaad samayn kartaa waalid ahaan? Cid saadaalin karta ma jirto waxa dhacaya. Waxaa laga yaabaa in xaalku uu isbedelo oo isla markiiba remote learning la galo. Waxaa kaloo dhici kara in cunugaaga laga helo cudurkan dabadeedna loo sheego inuu karantiil galo. Mid kastoo ay ahaataba, waxaa muhiim ku ah inaad u diyaarsan tahay oo carruurtaadana ay u diyaarsan yihiin inay casharradooda ku qaataan qaab online ah. Waxaad kaloo samayn kartaa balaan ku aadan waxbarashada canugaaga si aysan marna dib ugu dhicin waxbarashada canugaaga. Hubi inaad ka warqabto wax kasta oo cunugaaga iskoolka laga soo siiyo. Hubi inuu waxaas oo dhan uu ka shaqeeyo marka uu guriga joogo. Hubi canugaaga inuu xirto jaakad wanaagsan oo qabowga ka celinaysa, sababtoo ah galaasyada dhammaantood daaqadaha way furan yihiin, waxaana lagu jiraa xilligii qabowga. Sidaa darteed, hubi canugaaga dhar wanaagsan oo qabowga ka celinaya inuu xirto. Hubi inaad cunugaaga ka baarto cudurkan ugu yaraan 3 jeer isbuucii. Haddii aadan haysan qalabka lagu baarayo cunugaaga u dir iskoolka ayaa soo siinaya qalabka la isku baarayo. Sidoo kale, canugaaga markuu iskoolka ka yimaado, hubi inuu iska siibo jaakadda inta uusan soo gelin guriga, jaakadda, face maskiga iyo gloves haddii uu wato. Isla markiina waa inuu gacmaha iska dhaqo oo hubiyo inuu gacmaha si fiican u dhaqday intuusan guriga soo gelin. Run ahaantii way adag tahay in la saadaaliyo waxa dhacaya. Waxaa laga yaabaa waqti kasta in iskoolaadka la kala diro. Waa macquul. Waxaa macquula in canugaaga kaligiis uu karantiil galo. Waxaa macquula in canugaaga galaaskiisa guriga loo soo diro.
la wadaag walaalaha kale waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.